waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waa hagaag daawadayaal mar kale ramadaanul kariim maanta waa gabagabadii iyo gunaanadka tartankii inoo soo socda bisha barakeysan ee ramadaan oo ay ku tartamayeen ardayda baahiyaha gaarka qaba kuwaasi oo aynu bogaadinayno dhammaan cid waliba oo kaalin ku leh oo igu horeeyaan dhinaca maalgelinta ama taabagelinta oo shirkadda Bulal Business Group aynu leenahay ifkayba aqrana janno sidoo kale golaha barbaarta aragala ayaa agaasinka iyo waliba abaabulka iska leh iyo ardayda in ay halkan isugu yimaadaan bahweynta dalsanna waa baahinta iyo fursad siinta in ardayda baahiyaha gaarka qabay u baahan yihiin dhankooda dhiirigelin ballaaran in markaasi la siiyo natiijadii ayaynu ku dhawaaqaynaa ee 10kii su'aalood iyo waxyaabihii iska bedelay dhinaca natiijada Abuukar Dayax ayaa dhinaceega bidix fadhiya afun midig dhaadiga dhinaceega midig ayuu fadhiyaa Abuukar natiijadii iyo ugu dambeynba wayahay xasan maasan tahay hilaac iyo daljir ee maanta halkan ku baratamay waxa ay la kala yimaadeen groupka daljir waxa ay la yimaadeen 8 dhibcood waxa ay heleen laba ka faa'iideysi iyo su'aalahoodii tooska ah oo ay ka jawaabeen groupka kale ee hilaac waxa ay heleen hal ka faa'iideysi iyo su'aalahoodii kale oo ay ka jawaabeen qaarna ay ka jawaab waayeen sida daraadeed hilaac waxa ay heleen 7 dhibcood daljirna waxa ay heleen 8 dhibcood waa hal dhibic kaliya kaalinta loo kala galay kaliya aad liskuma jijiin liskuma dhibtoon daljir farac jalay ku fakatma leeyahay halkii oo kaambiyada hore daljir halkii la u wareegay halkii la u wareegay waa hagaag daawadayaal markana waxaan jeclahay inaan codbaahiyaha ku soo dhaweeyo gudoomiyaha golaha barbaarta aragala Ahmed Abdulle Hassan oo aynu siin doono maadaama tartanka maanta uu soo gabagaboobayo abaabulka iyo agaasinka guud ee tartanka iyo arday isu keenida iyaga ayaa lahaa iyo qabanqaabada dhinaca taabagelintana Bulal Business baahintuna waa Dalsa Media Group soo dhawow gudoomiye Ahmed waa dhawahay saaxiibkii Xasan Laki iyo Abuukar Dayax oo gudiga ahaa runtii maanta farxadeeda lama soo koobi karo 100% aad ugu faraxsanahay inuu noo soo dhamaaday barnaamijkii muddada aan ku taameynay in mar uun la qabto barnaamijkaasna waxa ugu mahadcelinaynaa qabsoomidiisa marka hore Allah subhanahu wa ta'ala marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa shirkadda Bulal Business Group oo barnaamijkan qarashaadka ku baxaya iyo hadiyadaha dhiibi doonta sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa telefishinka Dalsan ama Dalsan Media Group guud ahaan oo naga taabageliyay ama noo qabtay barnaamijkan Ramadaankii ugu horeeyay in maxaan ku yiraahdaa ay noo tabiyaan waana barnaamijkii ugu horeeyay nuuciisa ah ee ka dhaca guud ahaan geyga Soomaaliya Dalsan Media Groupna taaway ku amaanan tahay maxaa yeelay anaga oo la garanaynin qaab wax noola weydiiyo ayayna weydiiyeen su'aalo aqoon guud iyo diin isugu jira bulshadana waxaa leeyahay waa aragtaan sida ardayda ay ugu jawaabayaan su'aalaha bal bulshada Soomaaliyeed qaar kamid waxaa laga yaabaa in salaanta caadiga ah ama hadalka caadiga ah ay ku weydiin lahaayeen ama su'aal iska caadi ah in ay kaali xishoodaan ee qof kula socdo kale ay weydiiyaan tusaale waxaa lagu leeyahay qofkan ma arag la yahay leeyahay qof kale oo kula socda la weydiina marka maadaama maanta aan ka jawaabayno maskaxdii maroodiga iyo maskaxda daanyeerka iyo waxaas aan ka jawaabayno waxaan rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed in ay garan doonto dadka baahiyaha gaarka ah qaba inay ku jiraan dad wax bartay iyo dad wax barashada ilaa hadda ku jira iyo waliba waxaa nagu jira dad professor ah oo heerka sare ee waxbarashada gaaray bulshada Soomaaliyeedna waxaan rajaynayaa inay taas ku baraarugi doonaan wayna arkeen in badan hal fariin ayaan rabaa inaan u diro bulshada oo ah in ay naga gaarsiiyaan bulshada inta daawatay tartankan daawatay maahan inta aan daawan in ay gaarsiiyaan in bulshada dadka baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaan kuwa aragala ay yihiin kuwa wax bartay oo wax bara kara guryahana ay ka soo saaraan waalidiinta waliba waan ku sii adkeynayaa in caruurtooda ay wax baraan ay guryaha ka soo saaraan sidoo kale bulshada waxaan rabaa inaan u sheego qaybaha waxbarashada dadka baahiyaha gaarka ah qaba aad ay u liidataa maxaan ku yiraahdaa 15 sano ka hor inay soo gaartaa umaleena waxbarashadan gaar ahaan farta baraalka ama qalabkii wax lagu baranayay waxaan ka codsanaa marka bulshada in kaalinta kaga aadan waxbarashada iskuulaadka oo kaleeto ay aad u badiyaan maadaama iskuulaadka waxbarashada ee dadka aragala ay wax ku bartaan ay aad u yar yihiin fariintaasna waxaan rabaa inaan kaga faa'iideysto maanta farxadeeda lama soo koobi karo jimco wanaagsan idin leeyahay dhammaan bulshadana daawanaysa Dalsan Media Group Bulal Business Groupna oo mahadcelinayna anagoo golaha barbaarta aragala ana barnaamijkan waxaa lahayn qabanqaabadiisa iyo isku soo aadintiisa
runtii in allaali intii wax noo qabatay ee barnaamijka nagala qayb qaadatana taariikhda ayaa xusi doonta ramadaankan ramadaankiisa kale intaa ka gaaraynina waxaa idin leenahay ramadaan kariim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha barbaarta aragala axmed cabdulla xasan oo nagala qaybgalayay gabagabada iyo xiritaanka guud ahaan tartankii maanta xiisaha badnaa waxaanu leenahay abaabulka golaha ee ku aadan dhinaca agaasinka iyo abaabulka ardayda waynugu mahad celinaynaa bulaal business groupna iyaguna waxaanu leenahay ilaahay idinka abaalmariyay doorkiina iyo weliba warbaahinta dalsan media group oo iyaguna si niyad sami iyo gacaltooyila ugu mahad celinayo ugu horeeya agaasimaha oo waqti wanaagsan u siiyay ardayda inay tartamaan iyo xilliga loo dooqay waqtiga oo ah xilli ay iman karaan haddana u laaban karaan xaafadahooda haddii shaqooyin ay leeyihiinna ay kaga faa'iidaysan karaan annaguna waxay noo tahay taariikh kale oo warbaahinteenu kaga duwannahay maadaama doorka iftiimaya uu yahay in qof waliba oo ka mid a bulshada qaybaheeda kala duwan inaynu door u siino fursad u siino muuqbaahiyaha iyo weliba maqalka raadiyaha iyo weliba telefishinka dalsan waxaan jeclahay isna inaan kelimadiisa qiimaha badan inta aanan siinin abuukar dayax waxaan rabaa gruubkii guulaystay daljir oo soo halgamay in qof ka mida aan ku casuuno microfoonka isna in daqiiqad aynu siino si farxadda aynu u wada qaybsanno soo dhawaada bismillaah anoo ka socda gruubka daljir magacayga waa anas shiraawo kalsixdow run ahaantii maanta waxaa waaye waan guulaysanay xaqiiqdii muddo badanna waan ku taameynay inaan guulaysano hilaacna waxaa leenahay muxuuha waa idinkii oo guulaystay oo kale marka waxaan leenahay aada u mahadsantihiin maadaama muxuu ahaa aada muxuu ahaa barnaamijkan aada nagala qayb gasheen waa mahadsantihiin dalsan media groupna waa umahad celinayaa